dhegaysta ama daawade ku soo dhawow qaybtii lixaad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. sheekadan waa qiso dhab u dhacday waxa ay qaybtii shanaad ay inoo joogtay Xamso oo ka jawaab sugaya Shamso. Xamso oo isla qad ka miyaa gabadha ka xumaaday mise jawaabta ayaa ku adkaatay ayaa mar kale Shamso u qoray. Waxaan ka sugayaa jawaab uro nafteeda adigoo waliba ka fikiraya aniga caafimaadkayga. Shamso oo markaan diyaarsatay qoraal dheer ayaa hal mar tiri Xamsa aboowe waxaa tahay wiil wanaagsan aniga weligay qof ma jeclaan la imana jeclaan marka waxaan ka codsanayaa inaad fursad i siiso si aad arintaada uga soo fikiro. Xamso oo iska ilaalinaya degdegsiimo ayaa waxa uu yiri waayahay abaayo waxaan ka sugayaa jawaab ogow wax ma cuni dooni intaad iga soo jawaabaysid. Shamso oo arinta ka xumaatay ayaa waxa ay tiri aboowe wax cun fadlan jawaabteedu waxa laga yaabaa inay qaadato waqti aad u dheer. Xamso oo u jawaabaya Shamso ayaa yiri bal waayahay warkaaga ayaa jiro haddana qeyr badan ayaan ku rajaynayaa. sidii ayaa la isku macsalaameeyay qof kastana howshiisa gaarka ahayd ayuu sii wajahay. wixii maalmo la joogaba markaan Shamso ayaa soo wacday Xamso oo ku tiri waxaan doonayaa inaad qadka soo gashid. Xamso sidii ayuu ku aqbalay oo qadka ayuu soo galay. wixii la isa salaamaba salaan kadib xaaladaha ayaa la iska wareystay. Xamso oo sugayay jawaabta Shamso ayaa waxa uu ku yiri anigoo amarkaaga fulinaya ayaan qadka soo galay sidaa daraadeed waxaan filayaa inaad ii hayso akhbaar fiican. Shamso oo markaan hadalkeeda qaadata ayaa waxay ku jawaab celisay Xamsa maadaama aan ku dhahay chance isii oo waan ka soo fikirayaa arintan waxaa ii soo baxday arin adiga farxad ku ah anina ay noqon doonto. Shamso oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri aboowe aniga kuma rabo fikriya inaad ii aragto qof noloshaada dhaawacayo aniga waxaan kugu soo dhaweynayaa qalbigayga. waxaa tahay wiilkii ugu horeeyay ee nasiib u yeeshay qalbigan aan u baran murugo iyo walwal intaba. aboowe aniga waan ku jecelahay. Xamso oo aad u faraxsan ayaa soo dhaweeyay go'aanka Shamso. waxaa durba bilowday kaftan iyo dardaaran jaceyl waxaana lagu ballamay in qof kasta uu ilaaliyo xiriirka. waxa ay labadooda ku kala seexdeen farxad qof kastana waxa uu dareemayay farxad badan. markaan Shamso waxay qaadatay mas'uuliyad cusub sidoo kalena Xamso isagana waxa uu qaatay mid taa la mid ah maadaama xiriirka labadooduba uu ku cusbaa xiisahana uu aad u badnaa. waxaa la isdhaafsaday fariimo isdaba jooga koolna xadkiisa waa uu dhaafay oo mar waliba waa la isla hadlaa maadaama jaceylkooda uu marba marka ka dambaysa uu sii horumarayay. xitaa dadka qaar xaafadda la deganaa way ogaadeen balse xiriirkooda ma uusan noqon mid cidlooda oo markasta waxay ahaayeen dad iska warqaba oo isla shaqeeya xilli kastana iska warqaba. muddo sanad ku dhow maadaama uu xiriirkooda si wanaagsan uu u socday sidoo kalena waxbarashadii iskuulka uu u soo ilaaday. waxay markaan sheekada ay gaartay in la iska wareysto xaaladda mustaqbalka. Xamso ayaa ku yiri Shamso gacaliso waxaa ii farxada in xiriirkeenna uu muddo socdo isagoon aan wax khilaafa lahayn laakiinse mustaqbalka guurkeenna sideed jeceshahay inuu dhaco. intaa markii Xamso uu yiri Shamso ayaa soo booda waxaana ay tiri Xamsa waa ii farxad aniga haddii aanba adiga ku helayo waana ku soo dhaweynayaa. Xamso oo farxad badan ay ka muuqata ayaa yiri gacaliso maadaama waxbarashadii ay noo dhammaatay waxaan doonayaa inaan reerka kaa soo doonto ee sideed u aragtaa. Shamso ayaa arrintaa aad ugu faraxday waxaana ay tiri gacaliyo waa ii farxad aniga haddii aan adigaba ku helayo waan soo dhaweynayaa arrintaasi. Xamso oo wejigiisa ay farxad ay hareysay isla markaana muuqiisa uu isbedelay ayaa macsalaameeyay Shamso waxaana durbo u bilaabay baadigoobka odayaasha u dooni lahaa gabadha uu jecel yahay. daawade ama dhegaysta intaa haynoo joogto qaybtii lixaad sheekadii la magac baxday qaladkii murugada badnaa. inta qaybta xigta aan ku wada kulmi doono nabadgelyo.